bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waacana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona ahlu sunna oo weerar khasaare kala duwan dhaliya oo ka geysatay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug wararkii ugu dambeeyay ee xaalka guud ee doorashada soomaaliya iyo arrimaha ruushka ayaan daawadayaal warkeena kusoo qaadan doona madaxweyne Zelensky oo go-aan lama filaan ah ka qaatay dagaalka ka soconaya wadanka Ukraine ayaan daawadayaal warkeena kusoo qaadan doonaa Holland oo ku biirtay wadamada sida cad u taageeraya dowladda dalka Ukraine iyo wararkii ugu dambeeyay madaxweyne Vladimir Putin oo ka qaadanayo arrimaha dagaalka ka socda wadankaasi Ukraine qodobadaas iyo qodobo kale ayaan daawadayaal warkeena kusoo qaadan doonaa haddaba daawadi haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaabo qodobada ugu horeeya wararka Soomaaliya ahlu sunna wal jamiica ayaa weerar khasaare kala duwan dhaliyay ka geysatay gudaha magaalada Dhuusamareeb wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku waramaya in halkaasi uu maanta uu ka dhacay weerar khasaare dhaliyay oo ay fuliyeen koox ka tirsan ahlu sunna koox oo la tilmaamay inay ka tirsan yihiin ahlu sunna ayaa dilay 2 askari oo ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa gorgor waxaana kooxdaani dilka geystay ay isaga baxsadeen goobta uu dilka uu ka dhacay sida wararka aan ku helayno kooxda hubeysan ee dilka geysatay ayaa horey u sii qaadatay gaari cabdibilaah iyo hub ay wateen askarta la dilay waxa ayna kooxdaani u baxsadeen duleedka magaalada Dhuusamareeb gaar ahaan dhinaca deegaanka Bohol gaariga ay la baxsadeen kooxda hubeysan ayaa la sheegay inuu horey u lahaayeen xogaga ahlu sunna balse dagaal looga qabsaday waxaana weerarkaani maamulka Galmudug ayaa waxay weerarkani ku tilmaameen mid argagixiso waxaana afayeen u hadlay maamulkaasi uu sheegay inay socdaan howlgallo lagu bacsanayo kooxda hubeysan ee dilka geysatay maalmihii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadeed ee Galmudug ayaa aad u adkeyd iyadoona aan laga warqabin mararka qaar weerarada ka dhaca qaybo ka mid ah deegaanada Galmudug dhinaca kalena daawadayaal dowladda dalka Qatar ayaa mar kale waxay si cad u sheegtay in ay taageerayso dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo xilli ay socdaan qorshayaal cajiib ah oo si weyn looga soo horjeedo dowladda Qatar ayaa haatan waxay u muuqataa in mar kale ay isbedelo kala duwan ay doonayaan dowladaha kala duwan ee sida gaarka ah ugu tartamaya sidii awoodda Soomaaliya ee gacanta ugu dhigi lahaayeen dowladda dhowr ah ayaa horey waxay u sheegeen in ay rajadooda iyo riyadooda ay tahay inay maamulaan gibi ahaanba Soomaaliya imaaraadka carabta Qatar Sacuudi Carabiya Mareykanka iyo sidoo kale dowladda Norway ayaa waxay ka mid yihiin dowladaha haatan tartanka xoogan ugu jiro in madaxweyne iyaga ka amar qaatay ay keenaan Soomaaliya lama ogasa wax walba halka ay ku dambeyn doonaan inkastoo doorashada Soomaaliya ay haatan socoto dhinaca kalena daawadayaal Shariif Xasan Shiqaadan ayaa waxa uu sheegay in gibi ahaanba loo diiday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay madaxweynihii ugu horeeyay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inuu marnabo u dulqaadanaynin in Baydhabo isaga laga hor istaago isla markaana ay waajib ay tahay in lala dagaalo cidii isaga la dagaasho sida uu sheegay madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed dadka reer Koonfur Galbeed ayaa ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo sidoo kale awoodda guud ee shacabka deegaanada Koonfur Galbeed madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen ayaa waxa lagu eedeynayaa in gibi ahaanba uusan ku qanacsanayn hanaan siyaasadeedka Shariif Xasan Shiqaadan Shariif Xasan oo kamid ah shakhsiyaadka sida weyn ugu dhaleela hanaan siyaasadeedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa haatan waxa uu doonayay in uu kursiga beeshiisa uu ka doonto magaalada Baydhabo waxaa is hor istaag ku sameeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya inkastoo wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ay u fasaxday in uu ka qayb galo doorashada ka dhacaysa magaalada Baydhabo lama oga go'aanka iyo isbedelada haatan soo bixi kara haddana waxay wararku ay sheegayaan in xaalka weli uu adag yahay doorashada golaha shacabka ee ka dhacaysa magaalada Baydhabo doorashadeeda ayaa haatan waxay u muuqanaysaa in madaxweynaha Koonfur Galbeed oo gibi ahaanba uu ka soo horjeedo kooxaha sida weyn uga soo horjeeda hanaan siyaasadeedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo doorashooyinka ayaa dhammaanba madaxda maamul goboleedyada waxaa lagu eedeynayaa inay wadaan dhibaatooyin ay shacabka mararka qaar ay u geysan karaan haatan waxaa la wada sugayaa sidii qof walba ay tallaabooyin ay u qaadi karto inkastoo midka kale uu doonaya inay wax waliba u fududaadaan haddana uma muuqanayso culayska siyaasadeed ee marka qaarkood jira markana Ruushka
madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu si cad u sheegay in dowladda Ruushka ay wado dhibaatadii ugu xooganeed ee shacabka wadankaasi loo geysanayo. Dad badan oo Ukrainian ah ayaa waxaa la sheegayaa in ay ka barakaceen wadankaasi iyagoona doonaya in ay ka fogaadaan dagaalada iyo duqeymaha kala duwan ee ka dhacaya magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi Ukraine. Dowladda Holland ayaa waxaa la tilmaamayaa inay si cad u taageerayso isla markaana ay garab istaagayso madaxweyne Zelensky. Vladimir Putin oo ah hogaamiyaha Russia ayaa mar kale ku dhawaaqay in dagaalka la sii laba jibaari doono. Shacabka wadanka Ukraine ayaa baqdin xoogan muujinaya inkastoo wadanka UK uu ballan qaaday in diyaaradihiisa dagaalka uu u dirayo wadankaasi Ukraine. Haddii ciidamada wadanka Ingiriiska ay ka qayb qaataan dagaalada ka jira wadanka Ukraine, dowladaha kala duwan ee qaaradda Yurub ayaa waxay dhibaato badan ay ku noqon kartaa hubka nuclear-ka ah ee dowladda Russia uu doonayay inuu ku rido qaar ka mid ah wadamada quwadda leh ee sida weyn hana siyaasadeedkiisa uga soo horjeeda. Madaxda kala duwan ee wadamada caalamka ayaa horey waxay uga digeen in Ruushka uu sii wado dagaalka Ukraine. Magaalooyinka Kharkiv iyo sidoo kale Kiev ayaa waxaa la sheegayaa in xaalku uu ku adag yahay. Gantaalada ridada dheer ayaa waxaa laga soo riday magaalada Moscow ee caasimadda wadanka Russia, taasi oo la tilmaamay in caasimadda Ukraine ay ku dhaceen. Cabsi xoogan ayaa jirto iyadoo madaxweynaha wadanka Ukraine saacadihii ugu dambeeyay uu doonayay inuu ka baxo magaalada Kiev ee caasimadda wadankaasi. Madaxweyne Zelensky iyo kooxda taageerta ayaa waxaa la sheegayaa in ay weli ay diidan yihiin inay gebi ahaanba isaga dhoofaan wadanka Ukraine maadaama xaaladda adag wadankaasi uu ku jiro. Madaxweynaha wadanka Ukraine, ra'iisul wasaaraha wadanka Ukraine iyo gudoomiyaha baarlamaanka wadankaasi dhammaantoodba waxay ballan qaadeen inay qayb ka yihiin dagaalka looga soo horjeedo wadanka Russia. Duulaanka wadanka Russia ayaa saameyn badan shacabka ku yeeshay iyadoo shacabka baqdin xoogan ay ka muujinayaan wax waliba oo taagan. Caqabadaha adag ee mararka qaar ka jira wadankaas ayaa waxaa lagu tilmaamayaa kuwa saameyn badan bulshada ku yeelanaya. Dowladda dalka Kuuriyada Waqooyi madaxweynahooda Kim Jong Un ayaa horey waxa uu sheegay in uu taageero buuxa u yahay madaxweyne Vladimir Putin. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa taageerayaasha wadamada indhayarta ah markan ay si toos ah u soo ifaalabaxayaan xilli madaxweynaha wadanka Shiinaha Xi Jinping oo horey u tilmaamay in dowladda Shiinuhu ay ka go'an tahay in ay si cad u taageerto sidii dowladda Russia ay kaga soo horjeedsan lahayd go'aamada Mareykanka ayaa lagu eedeynayaa dagaalka ka socda wadanka Ukraine inuu isaga sabab u yahay. Guud ahaan saaxiibayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibayaal waa naga intaa. Haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka, wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala. Waadna mahadsantihiin. Nabadgelyo.